بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله هي برنامجكي قبنها قضبدا برنامج كان آد إذي كوغو هينانا وحا كمدا ميليتريغا إسرائيل أو كل واقعي هيغن يفي جيجنان يدو لشاعيي دقال لما فلانه أو قرحي كرا هدبا جيهويكي لغا عبسي قبا إن دقال كان أغيي معدو إسرائيل حق أيان إذي كغا هينا مدحوينها سوماليلاند أو لشاعيي بوقشة وكتغي دورا إسرائيل haddaba maxay ku aadan tahay booqashadani goorma ayaa la sila filayaa faahfaahin ayaan idiin haynaa ra'iisul wasaaraha Malaysia oo si adag uga falceliyay aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland kooxda STC ee dalka Yemen oo si rasmi ah ugu dhawaaqday inaysan ka bixi doonin saldhigyada ay kaga sugan yihiin gobolka Hadramaut ee dalkaasi arrintaasi oo Sacuudigu uu ku adkaysanayo sheekada ugu dambeysay barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay xarun laga dukaamaysto oo ku taal dalka Shiinaha ayaa dadka siyaarka ku cabo goobo ku yaala xaruntaasi waxay samaysay arrin la yaab leh oo looga hortegayo haddaba maxay tahay arrintaasi goobahaasi maxay yihiin waa idin faahfaahin doonaa sidoo kale amuurahaasi dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha soo dhawaada mar kale daawadaya si aad ula socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa xaggaasi waddanka Yemen golaha kumeel gaarka koonfureed ee loo yaqaano STC ayaa beeniyey wararka sheegaya in ciidamadoodu ka baxeen qaybo ka mid ah gobolka bariga ku yaala ee Hadramaut waxaana ay ku dhawaaqeen in ciidamadoodu ay ku jiraan heerkii ugu sarreeyay ee feejignaan iyo diyaargarow ah dhammaan dhacdooyinka suurtagalka ah bayaan uu soo saaray afayeenka ciidamada koonfureed ee hoostaga golaha kumeel gaarka ee STC Maxamed Al-Naqiib laguna baahiyey baraha bulshada ayaa waxa uu ku sheegay in wararka lagu baahiyey qaar ka mid ah warbaahinta iyo baraha bulshadu ay yihiin warar xan ah iyo been abuur isla markaasna aysan waxba ka jirin sheegashada la xiriirta in ciidamada STC ay ka guureen saldhigyo muhiim ah Al-Naqiib ayaa tilmaamay in ciidamada koonfureed ay si buuxda ugu sugan yihiin dhammaan fariismahooda ku kala yaal dooxooyinka iyo lama degaanka Hadramaut iyo Al-Mahra isla markaasna ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaq kasta oo ay sameeyaan kooxaha uu ku tilmaamay mucaaradka hubaysan gaar ahaan kuwa ku eedeeyay inay xiriir la leeyihiin sida hadalka uu dhigay ikhwaana muslimiinka iyo al-qaacida wararkan ayaa waxay imaanayaan xilli warbaahinta gudaha Yemen iyo tan Carabtu qaarkeed ay baahisay in STC ay sameynayso dib u garasho iyo inay ka baxdo deegaano ku yaal gobolka Hadramaut iyadoo xaaladda Yemen ay ka sii darayso kadib markii gudoomiyaha golaha madaxtooyada uu ku dhawaaqay in xaalad degdeg ah waddanka la geliyay iyadoo markaana lagu amray imaaraadka inuu iskaga baxo dalkaasi sidoo kale Sacuudiga ayaa xilligii 24 saac ee uu qabtay imaaraadku inay kaga baxaan waddankaasi ayaa idlaatay waxaana wararku sheegayaan in warar iskhilaafsan ay ka soo baxayaan ciidanka imaaraadka inay ku sugan yihiin gudaha waddankaasi inay ka baxeen inkastoo wararku ay sheegayaan inay ku sugan yihiin goobaha halka Abu Dhabi ku adkaysanayso in ciidankeedu ay baxeen waa tahay wixii ku soo kordha wararkaas waynu arki doonaa bal markan aynu eegno dhanka gudaha Israa'iil oo caawa war weyn oo ka soo baxay taliye sare oo ka tirsan ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in Tel Aviv ay tahay inay isu diyaariso dagaal lama filaan ah laga bilaabo bishii Oktoobar ee 2023 Israa'iil waxay dagaal ka waday marinka Gaza iyadoo sidoo kalena dagaalo ay ku qaaday Lubnaan iyo Iiraan militariga Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen maanta waxay ku yiraahdeen maanta waxaan soo dhamaaday kormeer lama filaan ah oo gudaha ah oo lagu sameeyay taliska dhexe kaas oo uu hogaaminayay taliyaha taliskaasi General Afi Balut taliska dhexe waa mid ka mid ah afarta talis ee ugu waaweyn ciidanka Israa'iil waxaana uu mas'uul ka yahay hawlaha military ee bartamaha Israa'iil iyo daanta galbeed ee la haysto oo ay ku jirto Qudus bayaanka ayaa Balut waxa uu ku yiri xaaladda ugu weyn ee aan u baahannahay waa inaan isu diyaarino inaan u diyaar garowno dagaal lama filaan ah waana inaan joogteynaa heerka ugu sarreeya ee diyaar garowga Balut ma uusan caddayn cidda Israa'iil dagaalka la geli doonto
laakiin Israa'iil muddo dheer ayaa waxa ay ku hanjabaysay in dagaal ay la geli doonto Iiraan waxayna weerar ballaaran ka fulisay gudaha dalka Lubnaan halka wasiirro Israa'iiliyiin ay ku baaqayaan in dib loo bilaabo dagaalka Mareykanka Gaza kormeerkan taliska dhexe wuxuu qayb ka yahay qaadashada casharadii laga bartay dhacdooyinkii 7 Oktoobar ee 2023 sida uu sheegay militarigu maalintaas Hamas ayaa weerartay saldhigyo militari oo ku dhow deegaanada Gaza waxaana ay dishay in ka badan 1,000 Israa'iiliyiin halka 250 in ka badan ay ka soo wadatay halkaasi kuwaasi oo qaarkood ay ku dhinteen Mareykanka Gaza Hamas waxay markaasi ku sheegtay jawaabta weerarkaas inuu ahaa ficilada Israa'iil ay ka fulinayso masaajidka Al-Aqsa ee barakaysan Israa'iil ayaa muddo 10 sano waxay gacanta ku haysay dhulal ku yaala Falastiin, Syria iyo Lubnaan waxaana ay si adag uga hortimid go'aamada caalamku uu ku aqoonsanayo madax banaanida Falastiiniyiinta iyadoo la dalbanayo in dadka Falastiiniyiintu ay helaan dawlad ay leeyihiin magaalada Qudus dhankeeda barina ay noqoto xarunteeda xuduuduhuna ay noqdaan ilaa iyo 1967 wixii ka horeeyay haddaba arrimahan waxay ku soo beegmayaan iyadoo Israa'iil walwal weyn ay ka qabto dagaal xagga Iiraan ku wajahan waxaana soo baxay warar kala duwan oo la xiriira in hadda Israa'iil aad uga gaabsanayso gaar ahaan madaxdeeda sarsare oo Netanyahu uu ka mid yahay banaanbaxyada imika ka socda waddanka Iiraan waxaana la sheegay taas inay tahay cabsi laga qabo Iiraan oo doonaysa dadka inay midayso inay weerar bilowdo marka dad badan waxay leeyihiin digniintan waa digniin ku wajahan weerar suurtagal ah oo ka yimaada dhankaas iyo Iiraan waynu arki doonaa wixii soo kordha arrimahaasi waxaan u gudbaynaa madaxweynaha Somaliland oo la shaaciyay in uu booqan doono Israa'iil iyo waliba ra'iisul wasaaraha waddanka Malaysia oo isna ka hadlay arrimahani iyo sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka laakiin aynu ku hakanno qadar xayisiina soo dhawaada marka la daawaday si aad ula socoto una hesho wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo beer waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad وهجاج markan waxaynu eegaynaa oo iman doonaa warka madaxweynaha Somaliland iyo safarkiisa Israa'iil laakiin xagga Kuala Lumpur aynu eegno ra'iisul wasaaraha waddanka Malaysia Anwar Ibrahim ayaa si adag u cambaareeyay aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland isagoo arrintaasi ku xiriiriyay waxa uu ku tilmaamay barakacinta qasabka ee Falastiiniyiinta sida ay warisay wakaaladda wararka Anadolu oo soo xiganaysa warbaahinta waddanka Malaysia ficiladan waxay ku xadgudbayaan xeerarka caalamiga iyo mabaadi'da bini'aadantinimo waxayna si wadi doonaan dulmiga halkii ay nabad ka noqon lahaayeen ayuu yiri Anwar oo ay soo xigtay jariirada Malaysia ee New Star Times Anwar ayaa sheegay in isku day kasta oo lagu adeegsanayo dhulkaasi loona adeegsanayo qaxinta qasabka ee Falastiiniyiinta uu yahay mid gabi ahaanba aan la aqbali karin hadalkan ayaa yimid iyadoo ururka Hamas sabtidii uu diiday ama uu ka hor yimid qorshaha Israa'iil ku saabsan in si qasab ah dadka Gaza looga raro dhulkooda loona raro deegaano ay ku jirto Somaliland waxaana arrintan sidoo kale ay ka dambeysay kadib markii jimcihii Israa'iil ay aqoonsatay Somaliland arrintaasi waxay dhalisay dhaleecayn caalami ah oo cirka isku shareertay kadib aqoonsiga Israa'iil iyadoo dalal badan ay cambaarayeen tilaabadan kuna tilmaameen xadgudub dhanka qaanuunka ah oo lid ku ah xasilloonida gobolka jimcihii dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay in aan laga gorgortami karin madax banaanida midnimada qaran iyo waddanka Soomaaliya midnimadiisa sida lagu yiri bayaan soo baxay dhinaca kale mas'uuliyiinta Somaliland ayaa iyaguna waxay si adag u beeniyeen wararka sheegaya in qorshahan qayb ay ka tahay in dadka Falastiiniinta la soo barakaciyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa waxay sheegtay in wararkaasi ay yihiin kuwa aanay waxba ka jirin iyadoo mas'uul sare oo ka tirsan madaxtooyada Somaliland uu sheegay in arrimaha Falastiin sinaba aysan uga hadlin Israa'iil sida uu yiri وهجاج warbaahinta Israa'iil ayaa waxay caawiso tibinaysaa war la xiriira in madaxweynaha Somaliland booqasho uu ku tago Israa'iil haddaba warbaahinta rasmiga ah ee kan iyo wargeyska The Times of Israel ayaa warbixino kala duwan arrintan ka qoray aynu eegno wararkaasi wargeyska The Times of Israel ayaa wuxuu gordhay wata daabacay in madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi la sheegay inuu qorsheynayo
booqasho rasmi ah oo uu ku tago Israa'iil tani oo ka dambeysay booqashadii Israa'iil ee aqoonsatay Somaliland. Warbaahinta dadweynaha ee kan ayaa sheegtay in inta uu joogo madaxweynaha Somaliland Israa'iil uu ku biiri doono heshiiska Ibrahim isla markaasna uu saxiixi doono heshiisyo laba geesood ah oo dhexmara Israa'iil iyo Somaliland. madaxweynaha Somaliland ayaa wargeyska wuxuu leeyahay horay wuxuu ugu tagay Israa'iil booqasho qarsoodiya bishii Oktoobar taasi oo qayb ka ahayd diyaargarowga ku saabsan ku dhawaaqista aqoonsiga sida la sheegay warbixintana ay tilmaamayso. ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka Somaliland oo xaqiijinaya safarkan la sheegay in cirra uu ku tagi doono Israa'iil. waa tahay wixii ku soo kordha arrimahaasna waynu arki doonaa. iminka waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay. ahlaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen. waxaan idin haynaa sheeko la yaab leh oo waddankaasi Japan ku saabsan, waddanka Shiinaha ku saabsan. Shiinaha farsamo iyo teknolojiyad caalamka meel sare ka gaaray. dadka siyaarka ku dhex caba goobaha dadkana mushkilad ayay caalamka ka noqotay meel walba. xitaa meelaha qaarkood waxaa lagu xiray qalab loogu talagalay inuu digni ka bixiyo qofka hadduu sigaarka u dhuuqo ama sigaarka u cabo. haddaba xarun ganacsi oo ku taal waddankaasi Shiinaha ayaa waxay ogaatay dadku markii meel kale ay ku cabi waayeen sigaarkii ama ku dhuuqi waayeen inay ku cabaan suuliyada ama masqulaha. laakiin arrinta la yaab kale marka maxay noqotay qalab laguma xirin, wax kale laguma xirin. albaabka masqusha waxa laga sameeyay ama suuliga waxa laga sameeyay albaab muraayad ah. haddii sigaar aad shido isla markiiba muraayadaasi iftiin bay noqonaysaa. halkan hadda waxaa ka muuqda nin inkastoo ninkan wejigiisa aad aan loogu jeedin oo saxaafad ahaan aan u qarinayno, haddana waxaa la sheegay in albaabka gacanta midig markuu qofku sigaar cabayn waa sidaa, laakiin mar allaali markaa sigaarka shidato muraayadan waxay noqonaysaa mid nadiif ah oo qofka gudaha looga jeedo. sheekada marka waxaa xiise leh ogeysiiska lagu dhajiyey inta aadan soo gelin masqusha ama suuliga, kaas oo lagu leeyahay ku soo dhawow goobtan inaad ku nafistana ku soo dhawow. laakiin haddii aad doonaysid inaad adduunka caan ka noqoto sigaar shido, haddii aadan doonayna sigaar ha shidanin. macnaha waxa weeye bannaanka lagu soo dhigayaa. xaruntan waxay ku taal magaalada la yidhaahdo Shenzhen, waana xarunta ganacsi ee aaggaasi ugu weyn. sigaar cabistu mamnuuc ayay ka tahay xarunta gudaheeda, laakiin mas-uuliyiinta xaruntaasi ayaa waxay qaati ka taagan yihiin dadkii oo bilaabay inay sigaarka ku dhex cabaan masqulaha ama suuliyada. markaas waxaa la keenay muraayadda halkan ay kaga muuqata oo yaabkeeda leh. haddii sigaar aad cabin xaalkaaga waa asturan yahay macnaha, laakiin mar allaali markaa shido waxaa la shaqaynaya qalab dareemayaal ah. muraayadaas way isbedelaysaa markiiba, waxay noqonaysaa muraayad qofka loo jeedo. marka waxa lagu leeyahay haddii dee muraayadaas loo jeedo oo halkaas lagaa duubo oo baraha bulshada lagu dhigo, adaa isku keena dhibkaas. ogeysiiska markaa ujeedaan derbiyad oo dhan baa la suray ama lagu dejiyey, taasoo markaa lagu gol leeyahay in sigaar aan lagu cabin. maxaa arrintaa markaa looloo din leeyahay? arrintaa waxaa looloo din leeyahay xagga qarashka iyo caymiska. maxaa yeelay dab baa ka dhalanaya sigaarka. marka xaruntan waa xarun aad u ballaaran, dhowr jeer baa dhibaata ka dhacday. marka go'aankaas baa la qaatay markii ugu dambeysay. waa hagaag inta ayaan kusoo gabagabeynaya caawa barnaamijka. waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino, haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan uga xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa. nabadgelyo.